arkiin aad bis oran doontaan waxaan sidee bay suurtagal ku noqon kartaa hadduusan iimaanka nagu jiro uusan celinina am dad iimaan la'aanan ahaynna waxa isdii leembo maba dhici karto waxa allaali wixii lagu sheegay waa rumaysanahay waxay tiri wuxuu mareebay tiri marxalad ma aragta aad qatar u ah balse waxay tiri aniga naxariista ilaahina kama quusanin waan ogaabay tiri qalbigeeda meeshan kaga aalay waan ogaabay tiri hamiga iyo ma aragta nolosha ilaahay min jirtay amri aakhirada iigan xinay tiri maxaa yeelay isbuucii ugu horeeyay isbitaalka soo baxay inaan dhimanaya ayaga ma aragta qorshoodii buugooda ku qornaa qaybtan ku jira isbitaalka igu jiro dhan ba maalin boqof dhimanaya bay tiri xifdi quraanka wala shayda hagaagsan si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan walaalaha qiyaarta saabtan jeclahay ee channelkaygan waani wacyi gelin ku xiran iyo walaalaha page-ka Facebook ee naga xiran buuxadin la soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada akhyaar asxaabay qisadan waa qisadii labaad oo ku saabsan fadaa'ishii fawaa'ida ee leedahay suuratul baqara qisada koowaad cidii aan soo daawanin qisaad iyo aad u cajab badan bay ahayd oo gabar welibana si degdeg ah ee natiijo la taaban karo oo ma aragtaa iyada afkeeda kaga sheekeynayso ee noogu sheegtay maantana qisada labaad arba insha Allah inadin la wadaago waxaan waliba rajeynayaa qisadan inay qisadii hore aad iyo aad uga cajab badan tahay oo markaad maqashaan qaarkiin aad bis oran doontaan waxaan sidee bay suurtagal ku noqon kartaa hadduusan iimaanka nagu jiro uusan celinina am dad iimaan la'aanan ahaynna waxa isdii leembo maba dhici karto soomahan laakiin falillahi alxamdu muslimiin baan nahay mu'miniin baan nahay insha Allah ilaahi xaqiisa wixii ka yimidne waxa allaali wixii lagu sheegay waa rumaysanahay gabadhan maxay gabadhan yaraa 20 jir da'da ah jaamacad bay dhiganaysay qisadan ayada afkeeda kaga sheekeynayso waxay tiri anoo jaamacadeeda iska dhigto oo aad wanaagsan oo arday wax barata ah sanadkii ugu horeeyna marayso baa waxay dhacday bay leedahay inaan dareemo xanuun uma arkin bay leedahay xanuunkaas inuu yahay xanuun ma aragtay aad u weyn waxbana kama soo qaadin maalinta dambe baa waxa dhacday bay leedahay in xanuunkeygii uu sii bato anigana waxaan isdhahay bay tiri tacabka iyo ma aragtay duruustan sanadkii koowaad ay ku tahay baa keentay maxay hintoole iska sii wada hawshaado kinyaal xanuun baabiye waxaasan iska cun sidii anoo jaamacadeeda ku dhiganay baa waxay tiri maalinta dambe waa miir doorsoomay dhulkan ku dhacay dhulka markaan ku dhacayna waxay tiri waxa la wacay ambalaas gaariga ambalaaska la igu qaaday isbitaalka markii la igeeyay oo ma aragtaa liigu sameeyay baaritaan iyo wixii qof xanuunsan markii la keen lagu sameyn lahaa waxay tiri dhaqaatiirtii waxay iga heleen xanuunka halista badan aniga naftiinaba ilaahay waxa magan uga nahay inuu nagu ridin inta islaam ahaayeen in ilaahay ka caafiyo rajaynayna insha Allah kansar baa leega helay bitri waxay dhahday waxa ha joogtee waxay tiri wuxuu mareebay tiri marxalad ma aragta aad qatar u ah balse waxay tiri aniga naxariista ilaahina kama quusanin qof shabaab dhalinyaro waan ahay sax nolosheeda bilowgeeda waa maraya sax laakiin haddana teedu waxa iiga sii murugo badneed bay tiri hooyaday waan ogaabay tiri qalbigeeda meeshan kaga aalay waan ogaabay tiri hamiga iyo ma aragta nolosha ilaahay min jirtay iyo inay ma aragta ku hamin jirto mar walba igulana kaftami jirtay inay aragtaa nooc caruusad ah ubadkeygana ma aragta ay koolkooliso laakiin waxay tiri wax walba qadaag iyo qadarkii qorshaha ilaahay adduunyada ku socdaan hooyo waxay tiri aad bay u naxday markii loo sheegay arintaas ka naxdayne waxay tiri hooyaday sababteedii iyo malageedii bay noqotay sidaasina dunida kaga tagtay ilaahay u naxariisto hooyadeed murugta xanuunkeyga waxa iiga darnaatay bay tiri murugta aan waayo hooyaday macaan oo qof walba uu qiyaasi karo hooyo booska ay ma aragtaa qof walba ka taagan tahay waxay tiri alxamdulillaah inaan nahay dad muslimiina iimaan la ilaahayna wuxuu noo keenay mar walbaan ku qanacsannahay waxay dhahday marxaladaas xanuunkeygii waa ku ilaaway daawooyinkii wixii ma aragtaa markaas la ii soo qoray ma aanan sideedu isticmaalin
xanuunku waxay tiri uu siyaade waxa markaan bilaabatay bay tiri in daawooyinka kiimikada ahaa la ii bilaabo waxay tiri timihii baa iga daatay nolosheedii inay isbedeshay waxay tiri dadkii aniga ma aragtaa meesha qaybta aan ku jiro isbitaalka igula jiro dhan baa maalinba qof dhimanayaa bay tiri oo xanuunka hayo kale uu haye aniga waxay tiri waa quustay nolosha ka quustay waxaan dhaabay tiri aniga isbitaalka liiga saaro waalidkeena way ila qaateen maadaama sida dhaqaatiirtuna ay sheegaan xanuunkaygu meel halis gaaray indhaygana ay macallin yihiin tiri oo dadkii ma aragtaa aniga aan isku meesha joognin maalinba mid uu dhimanayo sax qof walba waqtigiisii maalintiisu dhimanaya laakiin haddana waxay dhahday waan ka qustay bay tiri nolosha gurigeyga aan isaaligayaan dhahay gurigeena la igeeyey waxay tiri salaatul leyl iyo suuratul baqara laazimay maalin walba waa dhammayn jiray habeenkiina waxay dhahday waa ku soo jeedi jiray salaadina ku tukan jiray maxay toole waan akhrin jiray anoo ka rajeynay Allah raxmaanka inuu ii dambi dhaafo dhammaan wixii dunuub aan soo galay ii naxariisto xanuunkan haduusan ii ahayn xanuun daran baan dareemayaa bay tiri waxaan ilaahay mar walba weydiisan jiray bay tiri ilaahay rabbi raxmaan hadee noloshu qeyr ii ahayn oo geeridu qeyr ii tahay xanuunkan iga raaxay rabbi raxmaan noloshana rabbi raxmaan dhib baan marayay tacab ilaahay rabbi raxmaan hadee geeridu ii qeyr badan tahay ilaahay rabbi raxmaan isu dadajaan jiray bay tiri halkaas waxaad ka garan kartiin gabadha seerka ee ka gaartay quusna ma dhihi karno qofka mu'minka ade ma aragtaa maxay toole inuu quusto naxariista Ilaahay ka quusto maahan laakiin damacna ayada naxariista Ilaahay kama quusan laakiin qofka markuu xanuun daran dareemayo waxa xaqiiqo ah wax walba oo xanuunkaasi kaga baaqsan karo inuu ma aragtaa Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanayo gabadhan waxay tiri sanad baan sidaas ku noolaa sanad kadib nolosheedu waxay tiri isbedeshay aad baan u wanaagsanaaday caafimaadkayga ay soo laabtay waxay tiri dhaqaatiirtii ma aragtaa markii la iigeeyay waxay tiri way rumaysan kari waayeen waxay marka u tagayba dhakhtarka markaan tagayba oo liigu celiyay waxay tiri dhakhtarkii sida qof ma aragtaa qiyaamo ka soo laabtay amri aakhirada iiga naxinay tiri maxaa yeelay isbuucii ugu horeeyay isbitaalka soo baxay inaan dhimanaya ayaga ma aragtaa qorshoodii buugooda ku qornaa laakiin Ilaahay buugiisa wax kale ku qornaa dhahday waxay tiri marka alxamdulillah waa caafimaaday dhaqaatiirtadii baaritaan ugu sameeyeen xanuunkii waa la iga waayay waxay tiri nolosheedii caadi ku soo noqotay jaamacadeedii aan bilaabay alxamdulillah fadligii fadaaisha arintaas aan ku helna waxay ku tilmaamtay yada inay tahay suuratul baqara iyo salaatul leylkii aan waliba suuratul baqara ku tukan jiray ilaa raxmaanka ani waxaan ka bari jiray bay tiri inuu nolosha iga raaxeeyo laakiin isaga wax kale ila damcay qorshe kaleuna ma aragtaa kalaha nolosheeda wax inuu ituso buuna ma aragtaa sanadkaas rabbi subhanahu wa ta'ala iyo imtixaanii bay tiri xanuunkaas waxay tiri waan ka badbaaday waana ka caafimaaday laga yaabay dad badan waxay leedahay inaysan rumaysanin laakiin tan waa xaqiiqada iyo nolosheeda iyo wixii aniga aan soo maray ay ku soo gabagabaysay waan rajeynayaa dhamaantiin inaa qisadaasiti waxa ay xambaarsan tahay cashirka ku jiro duruustaan dhihi karna duruus ay xambaarsan tahay inaad fahanteen waan rajeynayaa insha Allah ilaa idinkiis inay suuratul baqara aad aragteen qiso labaad oo aad u cajab badan oo dad ay ku heleen faa'iido aad u weyn oo la qiyaasi karin dadka qaarna aysan barumeysan karin san horaantii video ku soo sheegay akhyaar asxaabi waa maasantiin qisooyin kale oo aad u fara badan oo suuradaasiti waxyaabo lagaga faa'iido ku saabsan baa insha Allah idin soo wadaa hadda aragtiin videogaaniti inuu mudan yahay in la share gareeyo insha Allah ila idinkiis inta insha Allah video waxa ku kulmeen waxaad kaga tagayaa waxay tahay idinkoo mahadsan kuna mahadsan daawashadiina sida quruxda badan ay la socotaan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh